عليكم daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Ousmane Dembele oo 2 sanadood gudahooda ku qaadan doona lacag gaaraysa 40 milyan barnaamijka ayaad ku daawan doontaan Erik ten Hag oo ka hadlay mustaqbalka xidiga Manchester United Marcus Rashford oo la xiriirinayo kooxda PSG qodobada kale barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah J. Cole oo magacaabay 4 kooxood ee Real Madrid ku garaaci kara ku guuleysiga tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan barnaamijka ayaad ku daawan doontaan Rio Ferdinand oo magacaabay 5 ciyaartooy ee ugu necba kubadda cagta iyo sababaha uu sharxay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka fadlan hadaad ku cusub tahay like inoo saara subscribe iyo siina share gareysi barnaamijkan uu gaaro asxaabo kale mahadsanidina xidiga kooxda Barcelona Ousmane Dembele ayaa la sheegay in 2 sanadood gudahooda uu ku qaadan doono lacag aad u badan taasi oo la sheegay inuu dabaaldegay sabab la xiriira waxa uu helayaa lacag aan la rumaysan karin jamaahirta kooxda Barcelona oo keenay jabsanaa xaaladda dhaqaale xumo ee kooxdooda ku jirta muddo 2 sanadood ayuu ku qaadan doonaa Ousmane Dembele lacag gaaraysa 40 milyan oo euro sidoo kale waxaana uu heli doonaa kala badh lacagta ay kooxdu ku iibiso xidiga reer France Ousmane Dembele ayaa ku sii nagaaday Barcelona oo heshiis cusub oo 2 sanadood u saxiixay bishii July toddobaadii kadib markii uu dhacay qandaraaskiisii hore ee uu ku joogay garoonka Camp Nou taasi oo ka dhigaysa in loo tixgeliyo sidii ciyaartooy ku cusub kooxda oo loo baahan yahay in horyaalka liiga uu diiwaan geliyo xidigani Ousmane Dembele ayaana faahfaahin badan laga bixin heshiiska cusub ee uu saxiixay kooxda Barcelona xilli ay kooxo badan ay u gacan haadinayeen waxaana haatan xogta qandaraaskiisa helay oo soo bandhigay wargeyska Sport ee ka soo baxa wadanka Spain sida uu helayo wargeyska ayaa sheegay Ousmane Dembele waxa uu sanadkii mushaar ahaan u qaadan doonaa lacag gaaraysa 16 milyan oo gani waxaana uu dheeraad u ah oo qaadan doonaa 4 milyan oo kale oo guna oo 12 bilood uu qaadan doona taasi oo ka dhigaysa in isku dara 2 sano ee uu joogo kooxda uu qaadan doono 40 milyan oo euro arintan oo aan laga filaynin in Barcelona ay sameeyso xilli ay dhaqaale xumo la dhibaatoonaysa kooxda ayaa waxaa sidoo kale dheeraad ku ah in haddii xidigan Barcelona ay iibiso inta uu ka harsan yahay heshiiskiisa inuu heli doono lacagta 50% lacagta lagu iibiyo oo Barcelona iyo xidiga ay qaybsan doonaan qodobkaasi ayaa ku jira heshiiska ayaa ah in kooxda soo dalbato laacibkan ay 50 milyan oo geni oo kaliya ku burburin karto heshiiska uu kula jiro kooxda Barcelona tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Erik ten Hag ayaa ka hadlay mustaqbalka xidiga reer England ee Marcus Rashford oo la sheegay in ay doonayso kooxda PSG kadib xilli ciyaareed uu aad u liitay oo ku qaatay Old Trafford taasi oo keentay in xidiga uu ku fikiro inuu isaga tago kooxda Manchester United uu soo gabagabeeyo waayihiisa kubadda cagta ee Manchester United Marcus Rashford ayaa la sheegay inuu la socdo xiisaha PSG hase yeeshee Manchester United ayaa weli kalsooni badan ku qabta xidigan oo aan doonayn in ay lumiyaan sida uu sheegay Erik ten Hag oo saxaafadda la hadlaya tababaraha Manchester United Erik ten Hag ayaa shirka jaraa'id ee ka hor ciyaarta waxa uu sheegay in xidiga reer England Marcus Rashford aan meelna uga socona kooxda Manchester United waxaana uu sheegay inuu ka mid yahay xidiga uu ku xisaabtamayo xilli ciyaareedkan isagoo hadalkiisa sii wata Erik ten Hag ayaa xusay in ay ka go'an tahay inuu sameeyo wax kasta oo xidigan ugu sii hayn karo Manchester United waxaana uu yiri wax walba ayaan u sameyn doonaa sidii aan xidigan aan ugu hayn lahaa Manchester United ma hubta inay sii haysan doonto Marcus Rashford wixii ka dambeeyay xilli ciyaareedkan
sababta ayaa ah qandaraaskiisa hadda waxaa kaliya ka harsan hal sano waxaana jira 12 bilood kale oo dooq oo xidigan uu haysto. Manchester United ayaa doonaysa in xidigan ay ku sii haysto garoonkeeda Old Trafford. Si kastaba ha ahaatee, Marcus Rashford oo ku bilowday ciyaartii Axadii Brighton ayaa la filayaa inuu mar kale ka mid noqon doono shaxda koowaad ee tababaraha kooxda Manchester United Erik ten Hag ee kulanka Brentford. Haliga reer England J. Cole ayaa rumaysan in ay jiraan 4 kooxood oo fursad ahaan ka wanaagsan Real Madrid marka loo eego ku guuleysiga Champions League xilli ciyaareedkan ee sanadka 2022 ilaa 23 waxaana uu meesha ka saaray in kooxda reer Spain ay difaacan doonto tartankana. Real Madrid ayaa bishii May ku guuleysatay koobkii 14aad ee Champions League iyadoo finaalkii 1-0 ku garaacday Liverpool, taasi oo ka dhigan in 8 sanadood ee ugu dambeeyay Real Madrid ay ku guuleysatay 5 Champions League. intii aanan gaarin finalka Real Madrid ayaa sii garaacday Paris Saint-Germain, Chelsea iyo Manchester City oo goolal badan ka dhaliyay Karim Benzema halkii xilli ciyaareedkan ay ku furteen gool oo ay Arbacadii ku guuleysteen UEFA Super League ay ku garaaceen kooxda Frankfurt. Kahor intii aanan bilaaban ciyaarta Arbacadii qabiirka BT Sport ee J. Cole iyo Owen Graves iyo xidig kale laaskooda ayaa la weydiiyay saadaashooda xilli ciyaareedkan hadda bilaabanaya ee Champions League cidda ku guuleysan doonta, waxaana dhammaantooda isku raaceen in Manchester City aanan abada ku guuleysan tartanka Champions League in ay ku guuleysan doonto xilli ciyaareedkan. Lescott iyo Cole waxay ku doodeen in Manchester City oo la saxiixatay Erling Haaland ay noqon doonto kooxda koobkan ku guuleysan doonta. Sidoo kale weeraryahanka reer Norway asna ku guuleysan doona kabta dahabka ee gooldhalinta Champions League. hase yeeshee waxaa ka duwan Owen Graves oo gooldhalinta u hibeeyay Robert Lewandowski oo dhawaan ku biiray kooxda Barcelona. J. Cole ayaa waxa uu isna saadaaliyay in Lewandowski uu noqon doono laacibka ugu fiican Champions League, halka Lescott iyo Owen Graves ayaa xidignimada u rajeeyeen xidiga Kevin De Bruyne. daayarka ugu fiican ee tartanka Champions League ayaa Lescott iyo Cole waxay u saadaaliyeen xidiga Manchester City ee Phil Foden, laakiin Owen Graves ayaa ku khilaafay oo siiyay laacibka ugu daada yar ee Champions League xilli ciyaareedkan xidiga kooxda Barcelona ee Pedri. Cole oo la weydiiyay saadaasha kooxda ku guuleysan doonta ayaa waxa uu yiri Real Madrid sanadkan waa looga fiican yahay kooxaha ku tartamaya Champions League, waxayna sheegeen dhammaantooda in kooxaha PSG, Manchester City, Liverpool iyo kooxda Bayern yihiin kooxaha ugu cadcad ee ku guuleysan kara tartankan Champions League xilli ciyaareedkan. Haligii hore Manchester United Rio Ferdinand ayaa magacaabay 5 ciyaartoy ugu necba waagii uu ciyaari jiray kubadda cagta, kuwaasi oo laacibeen uu ku dhibaatoon jiray joojintooda iyo kuwa dabeecadooda aad u xumaa oo isku dhici jireen oo ay ku dhawaan jireen inay gacan iskula tagaan. Rio Ferdinand oo kubadda cagta ka fariistay sanadkii 2015 ayaa u wareegay inuu noqdo falanqeeyo ciyaareed, waxaana uu aasaasay uu sameeyay YouTube oo la yiraahdo Rio Ferdinand Present 5, halkaasi oo uu ku soo bandhigo sheekooyinka kubadda cagta. ayaa waxaa su'aal laga weydiiyay ciyaartoyga ugu necbaa xilligii uu ciyaari jiray kubadda cagta. 43 sano jirkan ayaa markiiba la soo booday magacyada 3 ciyaartoy oo Liverpool ah iyo 2 kale, isagoona sheegay in ay ahaayeen ciyaartoyda ugu necbaa in ay garoonka isku dhex arkaan. ciyaartoyga koowaad ee uu necbaa ayaa waxa uu ku sheegay xidiga lagu magacaabo Robbie Savage oo u ciyaari jiray Liverpool, waxaana uu yiri waa necbaa Robbie Savage, waxaana uu sheegay in mar walba ay isku dhici jireen, waxaana uu sheegay in ciyaaryahankaasi ay isku koox marka tirsanaan jireen.
waxa uu sidoo kale ku xijiyay laacibkii hore ee kooxda Southampton, Blackburn iyo Bolton, waxaana uu ku saweeyay in uu ahaa weeraryahan xoogan oo dagaalka jecel isla markaana uu ku dhibaatoon jiray xakameyntiisa. ciyaartoyga saddexaad ayuu ku tilmaamay Mario Balotelli oo ay kulamo badan isaga hor yimaadeen Premier League intii uu weeraryahanka reer Talyaani ka tirsanaa Manchester City iyo Liverpool, waxaana uu yiri waa necba Balotelli, waxyaabo badan ayaa jiray uu dabeecad xumaa, laakiin hadda waana wada sheekaysan jiray markii dambe. labada ciyaartooy ee kale ayuu ku sheegay Luis Suarez iyo xidiga kale ee Fernando Torres, waxaana uu ku saweeyay sidii uu ugu dhibaatoon jiray joojintooda, gaar ahaan Torres oo uu xusay in uu ka boobi jiray kubadda oo orodna kaga dheerayn jiray si fududna goolasha uga dhalin jiray. daaficii Real Manchester United Rio Ferdinand ayaa waxa uu qirtay laacibiinta mise xidigaha uu ku dhibaatoon jiray inuu xirto kulamada isaga hor yimaadaan tartanka horyaalka Ingiriiska Premier League iyo tartamada kale. guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka.